بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك أصحابتا qaaliga meel kasta dunida ka joogtaan. waa mar kale iyo Lovely Channel oo maanta idin wada waa cambaburka ciida Carafo. ciida Carafo waa qaybta saddexaad ee cambabur hore uu ku jiraa channelkayga insha Allah. qaybtan waa qaybta saddexaad, waa nooc kale oo sameyn doono insha Allah. asxaabay insha Allah waa aad ayuu u fudud yahay. waa quraacda ciida waxaan maqli jiray lagu mahmaahi jiray niman cambabur aan ilmi ciidin. asxaabteeda qaaliga qaar badan oo garanayn ayaa jirta. alaabtan waxaa la yiraahdaa cambabur. waa alaabta quraacda, waa maalinta ciida quraacda. maalmaha kalena waad samaysan kartaan, laakiin haddaad maalin kasta samaysataan biyo batalaq ayay noqonaysaa. يعني حركات ما يلانيسو waxa fiican occasion kaliya yani si loogu talagalay inaad loo samaysto. laakiin haddii aan maalin kasta samaysto yani xiisa ma yeelanayso. waad samaysan kartaa ikhtiyaarka adiga leh, laakiin maalinta ciida si ay test iyo dhadhan kuugu yeelato hadii jeer guriga lagama samaysto. canjeerada caadiga ayaa la dubtaa. qaashan waa canjeerada walaasheed. waxay canjeerada isdhaamaan malaha, xoogaa nafaqo waa la nafaqeeyay, alaab healthy ayaa lagu daray. insha Allah dhamayso videoga bilow iyo dhamaystir si aad ula socotid sidaan u sameeyay. waxaan ka codsanayaa asxaabteeda qaaliga inaad isku daydaan insha Allah. ciidan waxaan rabaa xaafad kasta in laga sameeyo. halkaa waxaan ku haystaa khamuun Soomaali iyo xabatu sawda, huruud iyo cusbo. xabatu sawdada iyo khamuunta waan soo dubayaa insha Allah. wataas funnel seed ayaa la dhahaa English. waan soo dubayaa markaasaan mooyaha ku tumayaa. funnel seedkii waan soo dubay, mooyahan ku tumay. waa taas xabatu sawdadiina iyaduna waa xoogaa iyaduna dabkan saaray, waan dubayaa iyadana markaas udgoon yeelanaysaa. cusbada iyo huruudda waan ku daray, basashaasna waan ku darayaa insha Allah, laakiin gadaal ayaan kaga dari doonaa. waa taas khamuuntii waan diyaarsaday. tani waxa weeyaan xabatu sawdadii oon xoogaa yara dubay. udgoon ayay noqotaa markaad dubtid. khamuuntii oon tumayna waan ku daray. bas intaas waxaan ku darayaa wax yar oo khamiir ah ayaan ku dari doonaa insha Allah. waayo canjeerada waa inay ku khamiirto. canjeero aan khamiirin canjeero ma ahan. cambaaburkuna waa canjeero walaalkeed. waa inay si gooni ah weliba oo canjeerada ka daran waa inay u faxdaa. la socdo videoga dhamaystirka asxaabe. aad ayuu u fudud yahay. macaanka iyo tastigana balanta waxa aydan tijaabin lagama sheekayn karo. tijaabiya markaa ka warkeena. wax kasta waa laga warkeena soo maahan. ka warkeena waa asxaabteeda qaaliga. biyo bas ayaan ku qasayaa asxaabe. gacmaha sida cajiinka ayaad u qasan kartaa dhac. laakiin maadaama ay habeen aniga imika ii tahay oo jiiraanka ay seexdeen, xoogaa inaan dhibaan diidayaa. mashiinka ayaan ku samaysanayaa. waxaan halkaa ku haystay waa xoogaa yaroo cajiin khamiira iyo burka baraanka ah iyo xoogaa gelaya. mashiinka ayaan ku sameynaya. gacanta dhacdhac laga siinayo mashiinka ku fiican. si fiican ayuu waxaan kale u kala bixiyaa. xoogaa gacantana waan ku sameyn doonaa insha Allah. laakiin aniga mashiinkan ayaan ku samaystaa. mashiinkan aad gacanta bay isagaa ka fiican. waa mashiinka keega ee gacanta lagu sameeyo. waxaan ka ilaaway oon ku darsanayaa toon shiidan ayaan ku darayaa. waa taas. waxaan ku darsanayaa wax yar oo xulbad shiidana. xulbaddu waxa weeyaan daawo cajiib ah. wax yar oo xulbad shiidan ah ayaan ku darsanayaa. oo aan soo dubay. xulbada waan dubay waana shiiday, anigaa shiiday. wakaas wax yar baan ku darsaday. xulbada markaa waxaan aan kula shiiday wax yar oo geeda buurbuur ah. buurbuur baan kula shiiday udgoon si ugu yeelo. maasha Allah udgoonka halkaas ayaan ka dareemayaa. xaafada jiiraanka dhan ayaa laga urinayaa. si fiican ayaan u shiidayaa. mashiinka ugu sameynayaa. kadib xoogaa gacantaan dhac ku siin doonaa. waxaan ilaaha ku doontaan asxaabay.
يعني qof kasta wuu yaqaanaa sida loo qaso canjeerada laakiin canjeerada kolba saad garaaca iyo maaragta ugu badisid ayay indhaha iyo quruxda ugu noqonaysaa haddii waxaan ku dhahay gacanta intaas awal walaaqada iska dhigtid canjeero qurux badan kuma noqonayso marka gacanta waa inaad si fiican ugu qaraacdid waa inaad si fiican ugu garaacdid gacanta ama mashiinkaad si fiican ugu garaacdid kabacdi waan dhigayaa ilaa intay soo khamiirayso kadibna waan dubayaa markaan dubayana canjeerada baaburka marka aan dubayo ila socda waa canjeerada hooyadeedii aabaheed yaa canjeerada hooyadeedii aabaheed maasha allah tijaabiya ciidkan jimcaha insha allah sooda nagu soo haysaa ciida carfo waa ciiddii ariga la qali jiray laakiin yaa intaan beerkii la gaarin canjeeradan yar dhacdhac ilmaha uga sii adiga ka siiso xaajigaada uga sii maasha allah asxaabta uga sii dariska u qaybi yaa alaabtan caano garoor ayaa lagu cunaa ama caano yogad ama caano fadhi yani qofka kasta siduu u yaqaano ayaa lagu daraa sonkor kuma darin wax kale kuma darin waxaan ku daray xabata sowda khamuun ama funnel seed iyo cusbo bes wax yaroo khamiira xulbad yar iyo geedo buurbuuraan isku shiiday iyo toon markaa gacantan dhacdhac ku siina waaba sidii canjeerada unbaa loo qasaa marka hadda intaas diyaar ii noqoto basasha jeex ayaan ku darayaa kuma wada darayo hal jeex baan ku darsanayaa oo aan dhinac ka dhigayaa insha allah doorka hore waxaan idiin soo geliyay anigoo basasha ku shiiday doorkan laakiin doorkii ku xigayna basasha sidoo kale dhinac ayaan ka dhigay iyo toonta waan isku jabiyey dhinac ayaan ka dhigay maantana waxaan ku leeyahay basashii oo waaweyn ayaan dhex dhigi doonaa insha allah la socda asxaabay doorkii hore kumaan darin waxyaabaha ay ku kala gedisan yihiin baan idiin sheegayaa doorkii hore kumaan darin xulbad iyo xawaash burbur iyo toon midna kumaan darin doorkan laakiin toon iyo xabad iyo waxaan ku daray xulbad waa kaa jeexaas ayaan basasha ku samaysanayaa maadaama aan xulbad ku daray udgoonka xulbadda iga lumaysa saasaan ugu dhex ridayaa hadhowta markii canjeerada ii soo faxdana waan ka qaadayaa insha allah jeexii kalena waan iska dhigay markay soo faxdo haynoo ahaato way soo qamiirtay halkaas sonkor aan soo shiitay baan ku haystaa halkaana subag saafi aan ku haysta oo ariya canjeeradiina waa tan cambaaburkii wuu ii soo faxay kow basashii buurbuurnayd aan ku dhex ritay ayaan ka gura ka saarayaa yaa waa taa basashii ayaan ka bixinayaa basasha udgoon baan doonay markay khamiirto ay isla khamiirto waa diyaar birtii daawaha aan canjeerada ku dubayaan isla tegayna asxaabay la socda videoga bilow ee dhamaystir ciidan yaa waxaan rajaynayaa xaafad kasta inay samaystaan qofkii daawadaba inuu sameeyo uu isku dayo bir daawadii ayaa ii kululaanaysa oo dabka ii saaran way ii kululaatay waan bilaabay canjeeradan la socda cambaaburka sida canjeerada looma dubo waa la buurbuuraa kuuskuus ayaa laga dhigaa maadaama la shiilayo oo sonkor iyo saliid lagu shiilayo waa inay kuuskuus sida bankeeg oo kale ahaato xoogaa yar bankeegka ay waxaan ku leh khafiif ka noqoto waxaa la rabaa canjeero kuuskuusan inay noqoto khafiif haddaad ka dhigtid qalayl ayay kaa noqonaysaa waa inay canjeero buurbuuran noqotaa waad fahanteen baan u malaynayaa saasaan u kuuskuusay waad ujeedan saan u dubayo aan ugu shubayo asxaabey waa ii diyaar aad ayay u fududahay aadna way u macaan tahay yaa waa kaas asxaabey xabadii labaad ayaan ku shubayaa asxaabey waa taas waad ujeedaan waan idiin sheegay waa inay kuuskuus ahaato waa inay kuuskuus ahaato
ما شاء الله. wax ay kaga duwan tahay male cambaaburka canjeerada wuxuu kaga duwan yahay male, just faraqa u dhexeeya waxa weeyaan haruudii lagu dareeyay ama tumaarigii lagu dareeyay iyo xabatu sawdihii lagu dareeyay iyo fennel seedka lagu darayo. intaas udgoonka ka dhigaysa ayay weeyaan inta waxaan kula faraqa u dhexeeya. iyo canjeerada la shiilayo, canjeerada waa la shiilayaa xabad baa loo shiilaya ama laba loo shiilaya, kolba saa doontid ayaad u shiilaysaa. wataas waa ii diyaar maasha allah. saasuu maba qabsanaysaba birta daawaha markiiba saasuu uga qaadmayaa. waa taas xabadaasna waa kaas waan idinku soo dhaweeya asxaabey. si u kuusan tahay waad aragtaan, khafiif ma ahan. iska ilaaliya inay canjeeradu khafiifeeda ka noqoto, cambaaburka lama khafiifiyo. waad aragtaan saan u sameynayo. waa inuu kuus ahaado, waa inaa si fiican. shardiga koowaad waa inuu markaad dubaysid uu kuus ahaado. shardiga koowaad waa inuu si fiican u faxo ama u qamiiro. shardiga labaadna waa in marka aad dubaysid aad buurbuurtid ama aad kuuskuustid oo aanad khafiif ka dhigin sida canjeerada caadiga. aniga kuuskuuskaa baan jecelahay, xataa canjeerada caadiga markaan dubanayo sidan kuuskuuskaa baan u samaystaaba. dadka qaar baa khafiif ka dhigta canjeerada, laakiin aniga ma jecli canjeerada khafiifka. alaabtan kuuskuusan baan ku haystaa. yaa waa kaas u egtay quruxda waad aragtaan asxaabey. udgoonkana wuxuu ku leeyahay yaa dariska hadday soomaali ahaan lahaayeen saf bay iisoo geli lahaayeenba. waan ka xumay soomaaliba daris lama ihi. yaa udgoonka laakiin guriga dhan udgoonkii waxaan ku leeyahay xabatu sawdidii iyo fennel seedkii baa isqabsaday iyo toontii maasha allah. okay hadda birtaawi dhinacaasaan iskaga riixayaa. inaan shiilo ayaan rabaa, xabadii u dambeysay weeyaan. birtii aan ku shiilaya ayaan dhigayaa asxaabey. dabku waa caadi, waa dab caadi oo badan, wax khafiifa kamaan dhigin maadaama yar oon waxba ahayn baan ka khafiifinayaa. okay xabadii u horeysay ayaan saarayaa asxaabey. la socda sida loo shiilayo. waan idiin sheegay subag ari. haddaad subag rabin saliid zeedka caadigaha yaa olive oil ayaad ku samaysan kartaa, wax dhibaato male. batar ayaad ku shiilan kartaa, qasab maaha subaga. batar ku shiila, olive oil ku shiila, waxaad haysatid oo dufana ayaad ku shiili kartaa, wax dhiba malaha. saas ayaad u shiilaysaa asxaabey. sonkorta waa inay idin shiidnaato, sonkor shiidan oo amata caadiga ee maaragtay aysan shugaga laftirkeeda waad soo iibsan kartaan. waa taas sonkorta hareeraha iyo meel kasta gaarsii. laba ayaan u dubayaa asxaabey. xabadna waad duban kartaa. xabadaas markaysa halkaas aad aragta inay hoosta ka guduudatay dhinaca kale ayaad u rogaysaa. saana waad u duban kartaa, laakiin maanta labay ka shidan tahay. yaa labaan isku dubayaa insha allah. la socda xabadii labaad ayaan dul dhigay. labadaas ayaan isku shiilayaa. maasha allah. alaabtan asxaabey tijaabiya. gabdhaha asxaabtayda waxay yiraahdeen weligay anagu maanu arkin. yaa xujaaban idinka dhigayaaba maanta. gabdhaha aan magacyadooda halka ku sheegi doono waxaan rajaynayaa inaad ciidda carafo ee jimcaha ah yaa faamiliga u karisaan, weliba aad video kasoo duubtaan, aad video kasoo samaysaan insha allah. gadaal ayaan kasoo sheegi doonaa gabdhaha aan weligood arkin. yaa waxaan waa dhaqanka soomaalida. kolley soomaali haddaanu nahay cuntadan waa cuntadeena yaa dhinacii doonaba laga isticmaalo insha allah. aniga qaybta aniga ilaa markii aan garaadsaday yaa maalinta ciidda alaabtan unbaa naloo sameyn jiray. maalinta carafo yacni neef baa la qalayaa, ari baa la qalayaa. beerka hadhow cala kariim dowrada unbaa waxaa kule beerka laga soo saaro soo maha. markaasaa beerka la shiilay, laakiin inta ka horeysa sidii ilmaha gaaja qabanaysa waa in quraac loo sameeyo. yaa ciidda carafo waxba lama sii cunaa layiri, laakiin marka laga soo noqdo salaada intaan ariga la qalqalin quraac baa la rabaa. waa tan quraacdii ciidda. qofaan cambaabur cunin maba ciidinba.
marka asxaabtayda gabdhaha asxaabtaydan gadaal kusoo sheegi doono waxaan rajaynayaa ciidan carafo inaad u sameysaan cidda intaan ariga la qalin yaa ood reerka quraacisaan reerka baahiyaa lagu dilin rooti abuke ayaan cunaa baa layidhi iyo beer iyo caloole la isku shiilay maasha allah ilaahay idin calfee annaga ciidda tanaan cunaaye yaa bal soo tijaabiyo tanna annagana beerka iyo caloosha la isku shiilay waan tijaabin doonaaye yaa idinkuna tan tijaabiya soomaali waa la wadahay laakiin waa la kala yahay dadna alaabtana lagu quraacanaya dadna waxay ku quraacanayaan caloole iyo beer la isku shiilay yaa maasha allah annagana waa inaan tijaabiyaa mar alaabtaa la isku shiilay waa macaan baa la dhahay iyo rooti abukey marka lagu cuno yaa waa inaan bedelaa ciidda soo socota anyway ciidan alaabtan aan samaysanayaa laakiin ciidda soo socota ciidda rabadaanta ilaahay hadduuna gaarsiiya insha allah yaa caloole iyo beer intaan sameeyo rooti abukeyna aan sameeyo waa inaan channelka soo geliyo waa balan idinkana balan waxaa idinku ah ciidan carafo hadda jimcaha inaad tan sameysaan reerka quraacisaan asxaabey hadal baan idinku badiyey raalli ahaada waa kaas waan shiilay hadda xabadaasna waa anigaa shiilay maasha allah sidaa labalabada ayaanu shiilayaa waxaan diyaarsaday caana yogod aan soo qasay maasha allah waan dhinac ku diyaarsaday alaabtan caana yogod ayaa lagu cunaa ama ciir yaa maasha allah tabaarakallah sidaas ayay kusoo baxday asxaabey cambaaburkii caadigahana waka ka aan weli shiilin yogodkii waka koobkaagi shaaxa yaa cambaabur nimaan cunin ma ciidin yaa asxaabteeda qaaliga waxaan rajaynayaa bal ciidan inaad tijaabisaan ood reerka u sameysaan markaa ka warkeena cambaabur waxaan idinku celiyay magaciisa mar kale cambaabur yaa macaankiisana ila tijaabiya insha allah aad iyo aadna wuu u fudud yahay yaa waa healthy waayo xabatu sawda ayaa lagu daray oo healthy ah oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri xabatu sawdaha mowdka uun baanay dawoonine cudur kasta way daweysaa funnel seedka waa la wada naqaanaa digestiveka iyo qaybta iscaateynta iyo waxaasoo dhan yaa ayaaba loo cunaaba toontana waa la ogyahay dawadeeda maasha allah basashana warkeeda badaa basasha inkastoo waxaan kule aan ku shiilin doorkii hore waan ku shiilay waa kaas alaabtaas saasaa loo cunaa asxaabe dhac yaa yogodkaaga dhinac ka saaro iskama qabanaysid baan ku yiri believe me iskama qabanaysid haddaad alaabtan samaysatid iskama qabanaysid maasha allah udgoonka waad yaabaysa shaaxa laguma daro wax kale laguma daro yaa waa taas dhexdeedana aan idi tusay asxaabey soo eeg tahay waad aragtaan markii aan isku shiilay yogodkii wakaas yogodkaa dusha laga saaraa ama caano garoor haddaad yogod haysan waa isku mid ama caano fadhi yaa kaas ayaa lagu cunaa qaleylkeedana waad ku cuni kartaa haddaad rabtid wax dhibaato ama leh yaa haddaad caanaha nacaysid qaleylkeeda ku cun yaa keligeed baad cuni kartaa macaanka waxaan kule iskama qaban kartid yoo kaas dhac aan idin tijaabiyey maasha allah bismillaah cambaaburkii ciidda casharkii cambaaburka ciidana wataa xabaasuudiisa ay uga dhex muuqata waad arkaysaan maasha allah quruxda yami lagama sheekee waataa marka labada xabee isku dhigana aan isku shiilayna yaa soo tijaabiya asxaabey waa quraac healthy ah oo special ah oo kaale araga oo fudeed ah maasha allah tabaarakallah waxaan rabaa gabdhaha halkan aan kusoo sheegi doono waa gabdhaha igu yiri asxaabtayda weligay maanu arkin xataa meel lagu suubinayo maanu arag xataa magaciisa waxaan ku leeyahay maanu maqal gabdhahaas waaba idinku xujaystay xujo ayaaba idinka dhigay waa idinku qasbantiin inaad soo samaysaan isku tijaabiya hayd ka xumaado canjeero haddaana dubi aqoonin maxaa qof aan canjeero dubi aqoonin male alaabtaa lagu naasheeye lee ku dar bes iyo canjeerada sida loo shiilayo intaasun bay ku kala duwan yihiin
ya gabdhaha aan soo sheegi doono waa gabdhaha asxaabtayda oo yiri oo reer youtubera oo yiri waxay dhaheen weligay maanu arkin meel waxaan ku leeyahay baashan lagu sheegayo ya waan idin sharaxay sida loo sameynayo asxaabta qaaliga isku daya ciida carafo insha Allah gabar kasta waxaan rajeynayaa inay clip intay kasoo duubto luuqa ii soo dhigto ya asxaabta qaaliga ayaan markaa la soo wadaagi doonaa gabdhaha aan weligood sameynin oo sameeyay oo isku dayay tijaabiyay waqtan gabadha koowaad samsam degan waa inaad soo tijaabisid samsam ay weligay maan maqal bay tiri gabadhan cambaabur maxtaa magaciisa ma karayso ya maasha Allah gabadha kale waa Faadimo fiican in the kitchen Faadimo fiican iyadana waxay tiri ma arkinba magaciisa bay dhibaayay tiri ya iyadana waxaan rajeynayaa inay waxaan kula isku daydo ay soo sameyso ya gabadha kale waa Sayruun Cudbi ayada waan maqlay bay tiri laakiin ma cunin laakiin waa inay idin soo tijaabiso iyadoo waa rabtaa inay tijaabiso insha Allah waxaan rajeynayaa ciida inay carruurta u suubiso Suhayb Hiba Nuura waatan Hiba Nuura ayada magaca bay dhibaya bay tiri weligay ma arkin hataa ma maqlin bay tiri meelahaas hadda ku arkay Hiba Nuura waa kaas bal soo tijaabi Shaakiriin ma sha Allah iyada waxa bay taagan tahay rooti abuke iyo calool ku haysta ma sha Allah Shaakiriin soo tijaabi wax kasta waa la tijaabiyaa ya Khadrana waa tana iyadan laftirkeeda ma arkin bay tiri iyadana meel weligay ma dhadhaminay tiri hadda laakiin guriga ku soo bisar ciidka dhadhami Xamdi haddaad ii dhowda anaaba ku keeni lahaa xabiibti adigana bal soo tijaabi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu